faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa qorshihii madaxweyne Trump. Xogag caalami ah oo aan la aqoonin iyo siriq la rabo in loo maleego ururka Xamaas ayaa la sheegayaa in Gaza ay ka soo food leedahay. Calaamadahana waxay muujinayaan in laga yaabo in dagaal lagu noqdo, dagaalkaasna ay u badan tahay. Wararka cusub ee soo baxay iyo xabajoojinta khatarta ku soo food leh ayaa laga hadlay. Waxa dhacaya ayaa waxaa lagu sheegay inta badan inay ka dhacayaan qolal shirar oo albaabada u xiran yihiin. Macluumaadka iyo kulamada isdaba joogga ah ee sirta ah ee ka dhacaya albaabada xiran gadaashooda ayaa aad waxaa looga walwalsan yahay oo dhinacyada uga walwalsan yihiin qaabkii loo dhigi lahaa heshiis cad oo meel mar noqon kara oo ciidamo caalami lagu geyn karo marinka Gaza gudaheeda. Yay noqonaysaa howlgalkaasi inay madax ka noqoto sida laga soo xiganayo madaxweynaha Mareykanka oo hal abuurkan iska leh. Waxaa lala wareegi doonaa amniga magaalada Gaza iyo marinka Gaza, waxaana daba socon doona arrintaas in la meel mariyo heshiiska xabajoojinta. Inkastoo galkan ciidanka lagu geynayo caalamiga ah ee Gaza iyo marinka Gaza uu yahay midka ugu dhibka badan, khatar xoog leh ay ka soo food leedahay, isla markaasna gal miriqsan ah ayaa waxaa laga yaabaa in ay ku soo food yeelato heshiiska xabajoojinta marinka Gaza. Dhexdhexaadayaashana waxay isku dayayaan inay xal si degdeg ah ku helaan oo suuragal ah si ay gacan uga geystaan in la abuuro nidaamkii loola falgeli lahaa xaajadan oo labada dhinac u cuntami karta, Israa'iil iyo Xamaas, si aanan heshiiskan uunan u fashilmin dagaalna aan loogu noqon mar kale. waa gartay maxamed, waxa warbixintu ay leedahayba qorshahan waxaa laga yaabaa sida Mareykanku ay doonayaan toddobaadii gudahood in la hirgeliyo. maxaynu ka ognahay faahfaahin dheeraad ah qorshahan toddobaad gudihiisa toddobaadii gudahood ciidamo lagu geynayo Gaza? Warbaahinta carabta qaar ka mid ah ayaa galkan ka hadlay oo ku sheegay inuu qodxa badan yahay. Waxayna soo xiganayaan ilaa aan magacooda la sheegin, iyadoo dowladda Mareykanku ay ka shaqaynayso qorshe ay ciidan caalami ku geynayso Gaza toddobaadii gudahood. ayaa haddana hoosta waxaa laga xariiqayaa ciidamadaasi caalamiga la geynayo ayaa la filayaa inay ku jiraan dalal caraba iyo dalal kale oo ajnabi ah. Warbaahinta carabta qaar ka mid ah ayaa sheegaya in qorshaha Mareykanka ay ku jiraan in police Falastiiniintu ay leeyihiin la tababaro si ammaanka marinka Gaza oo la wareego mar dambe. Saraakiisha Mareykanka iyo Israa'iil ayaa u sheegay barta Axios ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka in dowladda Mareykanku ay u soo jeedisay dagaalyahanada ururka Xamaas in ay wadan nabad ah maraan, loo ogolaanayo inay ka baxaan deegaanka Israa'iil hadda gacanta ay ku hayso marinka Gaza la rabo in labada dhinac ay u kala guuraan. waa gartay laakiin waxaa la leeyahay arrintu sidaas uma fududa. Mareykanka laakiin qorshihiisu markaa muxuu yahay? Saraakiisha ayaa sharaxaya hadafka uu Mareykanka hindisaan ka leeyahay waxa weeye in xasiloonidu ay cagaha dhulka dhigato iyo xabajoojinta, isla markaana dhinaca marinka Gaza ee Israa'iil gacanta ugu jira in ay ka baxaan dagaalyahanada ururka Xamaas sida laga soo xiganayo saraakiisha Mareykanka. Warbaahinta reer galbeedka ayaa ku waramaysa in dowladda Mareykanka ay siinayso dagaalyahanada ururka Xamaas waddo amni ah oo ay ku baxaan, oo ka baxaysa sida la sheegay khadka huruudiga ah ee la rabo in ay dhinaceeda Israa'iil joogto, taasoo kala qaybinaysa ayaa la leeyahay marinka Gaza. Ururka Xamaasna uu soo wareegi doono dhinaca kale. Ujeedada oo Mareykanku u soo jeediyey aragtidan ayaa waxaa loo gudbiyey baa leeyahay ururka Xamaas oo loo marsiiyey dhexdhexaadayaasha Masar iyo Qatar, waa sida hadalka oo dhigaya, si loo xasiliyo xabajoojinta, isla markaasna dhinaca Israa'iil ee hadda ku suganta ee marinka Gaza looga saaro dhammaan dagaalyahanada ururka Xamaas. waa gartay dhanka Israa'iil maxaynu ka ognahay oo saraakiishooda arrintan ay ka sheegeen? wargeys ayaa waxa uu soo xiganayaa saraakiisha Mareykanka iyo Israa'iil oo sheegaya
in maamulka maraykanka uu ku wargeliyey xamaas isagoo sii marsiiyey fariinta masar iyo qatar in dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta 24 saacadood loo qabtay inuu dagaalyahanadiisa kala baxo deegaanka bariga ka ah qadka huruudiga ah oo ciidanka Israa'iil ku hoos jira sida xabajoojinta ku xusan hase ahaatee waqtigii kama dambaysta la qabtay ayay ahayd in uu dhammaado 8 fiidnimo maxalliga khamiistii. Israa'iil ayaa markaa waxay awood u yeelanaysaa inay xoojiso xabajoojinta isla markaasna weerarka ururka Xamaas lala beegsanayo khadka huruudiga ah ka shisheeya ayuu ku koobnaan doonaa sida saraakiisha Maraykanku ay sheegtay. waxaana la tilmaamayaa in ururka Xamaas cid ka tirsan oo khadkaas ka gudubtay ma jirto oo u hoggaansantay waqtiga kama dambaysta loo qabtay. tiro ka mid ah dagaalyahanada ururka Xamaas ayaa weli ku jira weedka hoostiisa goobaha Israa'iil ku sugan tahay gaar ahaan magaalooyinka Khan Yunis iyo Rafah. waa gartay Israa'iil markaa walwalkeeda muxuu yahay ciidankan ku hoos jira haddii xabajoojinta la gaaray goobaha ay ku sugan tahay xagga dusha sare haddii iska cabinta godadkaas ay ku jiraan maxay tahay walwalka ay ka qabtaa? ilaahay hadda waxaa jira qaybo ay dagaalyahanada ururka Xamaas ku sugan yihiin waxaana laga shaqeynayaa sidii deegaanadaasi looga bixin lahaa dagaalyahanadaasi halka militariga Israa'iil taliyaheeda uu sheegayo in uu rabo in uu si qumaati u qabsado deegaankaasi hase ahaatee dagaalyahanada ayaa waxay ka soo baxayaan godadka hoostiisa waxayna weerarayaan ciidamadeena taana waxa ay dhalinaysaa in falcelin ay ciidamadeena ka timaado horseedana dagaalka inuu balaarto sida taliyaha hadalku u dhigay. ciidanka Israa'iil ayaa ayagana dhankooda sheegay in 2 meyd oo maxaabiistii laga haystaa in marinka Gaza looga soo wareejiyey hase ahaatee dhexdhexaadiyaasha Lanqeyrta Cas iyo ururka Xamaas ayaa talaadadii warkaasi sheegay in labadaasi meyd maxaabiista ahaa in ay baarayeen haddana waxaa muuqata in loo gacan geliyey dhinaca Israa'iil. waa gartay qorshaha Trump uu soo gudbiyey Maraykanka Gaza dhowr qayb oo ka koobnaa marka haddii wajigii koowaad laga gudbiyey ama la gaarayba oo xabajoojintii ahaa maxaynu ka ognahay ilaa hadda tilaabooyinka la qaaday wajiga labaad? marka la fiiriyo waxyaabaha cusub ee soo kordhaya Israa'iil ayaa dardargelinaysa tilaabooyinka ay sheegayso in ay khatari ka soo food leedahay ururka Xamaas ee Maraykanka Gaza sababtaasina weeye in ay weerarada la beegsanayso deegaanada ay gacanta ku hayaan Israa'iil ay gacanta ku hayso. waxaa xusud mudan in hoosta laga xariiqo in September 29 aqalka cad uu daboolka ka qaaday qorshaha madaxweyne Trump ujeedaduna ay ahayd in colaadda Maraykanka Gaza lagu xakameeyo. dokumentiga ka koobnaa 20 qodob oo ay ku jirtay in xabad si ku meel gaar ah maamul dibadda ka yimaada uu Maraykanka Gaza ula wareego isla markaasna ciidamo caalami ah la keeno oo xasiloonida qaabilsan ayaa ayadana ku xusnayd. October 9 Trump ayaa waxa ka dhawaaqay wakiilada Israa'iil iyo Xamaas ayaa waxay isku afgarteen in wajiga koowaad ee xabajoojinta qorshihiisa ku xusnayd in la meel mariyo kadib markii wadaxaajood lagu yeeshay Masar hase ahaatee hadda wax badan baa isbedelay. waa gartay warbaahinta Israa'iil waxay ka hadlaysaa wafdi ka socda Israa'iil in ay tagi doonaan dhawaan Maraykanka ama toddobaadkanba maxaa laga filayaa wadahadalladaasi iyo wafdigan maxay yihiin? wargeyska iyo dacwada Axranood la yiraahdo ayaa ku waramaya in wasiirka arrimaha istiraatiijiyadda ee Israa'iil Ron Dermer la filayo inuu booqasho ku tago magaalada Washington caasimadda dalka Maraykanka toddobaadka soo socda si uu wadaxaajood uga yeesho qorshaha caalamiga ah ee golaha ammaanka la horgeyn doono ee ciidamada lagu geenayo Maraykanka Gaza. waxaana la sheegay in Dermer uu la kulmi doono saraakiisha sare ee Maraykanka uu ku jiro ergeyga gaarka ah madaxweyne Trump Steve Witkoff iyo wiilka uu saddeq u yahay Jared Kushner si loo dhammaystiro nuqulkaasi la horgeyn doono golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
waxaana laga soo xigtay saraakiisha Israa'iil ayagoo sheegaya in ujeedada qaraarkaasi looga wada shaqeynayo inay tahay in la helo qaanuun iyo qaraar ka soo baxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay hase ahaatee looma ogola Israa'iil uma ogola golaha ammaanka ee qaramada midoobay in howlgalkaasi ay xudun u noqoto ama ay garwadeen ka noqoto waaya khilaaf baa jira la sheegaya iyo kala aragti duwanaansho labada dhinac u dhaxaysa maxaa laga ogyahay arrintaasi maxaase lagu salaynayaa sida uu xusayo Edward Axranood ismariwaa weyn ayaa jira oo keenaya ciidamadaasi caalamiga ah qaanuunka ay ku shaqeyn doonaan iyo cidda ay taageeri doonaan Edward Axranood ayaa tilmaamaysa in wadamada inta badan ay ku adkeysanayaan in loo baahan yahay qaraar ka soo baxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka hor inta aynay ciidamadooda soo dirin arrintaana waxay tilmaamaysaa dalalka oo dhan inay diidan yihiin in qodobka 6 ee axdiga qaramada midoobay iyo qodobka 7 ee axdiga qaramada midoobay midkood in la qaato ayaa la isku diidan yahay qodobka 6 waxa uu xusayaa in ciidamo nabad ilaalin ah ay soo galaan deegaanada la isku haysto nabadda caalamkana khatar ku ay amniga halka qodobka 7aadna uu sheegayo in talaabo military la qaadi karo oo lagu meel mariyo nabadda waa gart marka digniinta Israa'iil ka imaanaysa maxay tahay oo qorshahani ku wajahan wargeyska afka Hebrew-ga ku hadla ayaa laga soo xigtay ilo reer galbeeda oo diblomaasiyiin oo magacooda la sheegin oo wada xaajoodka qaybka inay sheegayaan chapterka 7aad ama qodobka 7aad ee axdiga qaramada midoobay in uu ahaan lahaa midka ugu munaasabsan oo la isku raaci karo hase ahaatee Israa'iil ayaa digniin ka dhana arrintaas jeedinaysa qaraarkan caalamiga ah ayaa wuxuu noqon karaa mid sahlan oo ka kooban in la ogolaado in ciidan si degdeg loo geeyo faahfaahinta dheeraadka ah iyo sida wax loo qabanayana iyo mas'uuliyadana ay ku howlgalayaan waa in sharaxaad laga bixiyaa sida wargeysku xusayo hase ahaatee kulamada qarsoodiga ah dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ka baqaysaa inay ka hor yimaadaan dowladaha Ruushka iyo Shiinaha oo labadaba laga yaabaa inay diidmada qayxan ku isticmaalaan oo dib u dhac ku yimaado ama ay hor istaagaan tilaabadan waxaana la soo xiganayaa ilaha diblomaasiyiinta laga soo xiganayaa arrimahan la socda in ciidanka xasiloonida caalamiga ah ay ku jiri doonaan wadamo caraba iyo wadamo muslimiin oo kaliya halka wadamada reer galbeedka aan la fili karaynin inay ka qayb qaataan waxaa sidoo kale la soo xigtay oo diblomaasi reer galbeed laga soo xigtay dadaaladan waxaa laga yaabaa inay horseedaan dowladda Mareykanka in siyaasadda iyo arrimaha farsamada ay garwadeen ka noqoto waa gartay xaruntan hadda Mareykanku uu ka sameeyay gudaha Israa'iil oo uu ku tilmaamay in la soconaysa xabad joojinta maxaa laga ogyahay ilaa hadda waxa ay qabatay ama ay arrimahani ku lug leedahay xarunta taliska ah isku dibridka howlahan xabad joojinta ee la soo jeediyey oo ciidamada Mareykanka iyo rayidka Mareykanka ay maareyn doonaan ayaa waxay ku taallaa magaalada Kiryat Gat ee koonfurta Israa'iil ku taalla dhinacyada ka qayb qaadanaya ayaa soo diraya wakiilo xaruntaasi fariista ciidankana waxa ay kormeeri doonaan lana socon doonaan arrimaha bini'aadanimada ee gargaarka ah iyo arrimaha amniga isku dibridkiisa iyo dib u dhiska wajiyada ugu horeeya iyo qodobka ugu weyn oo ah in hubka laga dhigo ururka Xamaas sida hadalka loo dhigay waa gartay dib aan ugu laabana Maxamed hindisaha Trump wejigiisa labaad miyaa la guda galay wejigaasi ilaa hadda maxaase caqabada hor yaal wejiga